magaalada beledweyne ayaa timid muxuu ahaa ujeedka socdaalkaada beledweyne aad u imaatay marka laga yimaado in deegaankii ama deegaan doorashadaad ka soo jeeday degmada beledweyne ay tahay ama hiiraan horta booqashadeeda dabcan waxay ahayd laba qayb ay u badneed qaybta koowaad waxaan ku imaaday maadaama mas-uul oo degmada matalo oo dabcan xildhibaanada kamid ah kasoo jeeda degmadan aan ahay in horta deegaankii booqdo deegaanka aan soo booqdo oo aan dadkii xogtooda aruursho hadday jirto xagga arrimaha biyo la-aanta waayahan jirtay abaaraha amniga xaggiisa arrimaha bulshada waa un inaan xog wareysi deegaankii aan soo gaaro oo aan xog wareysigaas u imaado sidoo kale inaan la kulmo dadka deegaanka sidoo inaan la kulmo odayaasha dhaqanka waxgaradka siyaasiyiinta dhalinyarada inaan ayagana la kulmo oo sidaad og tahay guddoomiye xisbi maadaama aan ahay in waddanka aan ka wareysto qaabka dalkan u gaari karo horumar iyo qaabka doorasho ay u dhici karto xisbigana qaabka xisbi ahaan iyo dadka Soomaaliyeed ay u tartami karaan marka labada dhinacba anoo u imaanayo arrimaha wasaaradana dabcan maadaama aan haday ku sheegay 9 cutub oo wasaaradda dastuurka federaalka wax ka bedesho oo jiro inaan dadka reehidan iyagana aan u sheego in isbedeladaas 9 cutub aan u soo wadno maadaama 9 cutub wax laga bedelay la keenay doono had lagu daafur doono caasimadda dowladda goboleedka Hirshabelle markii Hirshabelle la keeno lagu daafuro 9 cutub inaan u soo rarno magaalada beledweyne oo aan keeno haduu Ilaahay yiraahdo oo dadka reer beledweyne gaar ahaan dadka guud ahaan dadka reer hiiraan aan cutubyadaasi maalin u soo bandhigno aan u sharaxno aragtidooda iyo wax ka bedelkooda wixii lagu daraayana aan aruurino annagoo mudalayno guud ahaan reer Hirshabelle aan xogtaasi aan gudbino haduu Ilaahay yiraahdo dadkii aad la kulantay bulshadii ku nooled magaalada beledweyne haddii aad waraysato odayada dhaqanka iyo qaybaha kala duwan ee bulshada maxaa dhibaatooyin ama duruufo ay ku sheegayna jira indhahaas adigu maxaa ku aragtay wallaahi dabcan arinta odayaasha mar walba marka la sheekaysto ay ku sheegaan waxaa kamid ah aad ay u badan tahay horta duruufta ugu weyn oo Hirshabelle ay xalin laadahay maamul gobolka Hiiraan oo xalin la yahay waa arinta shil Soomaaliga oo sicir bararka aad awood u gelinayso waayo waa magaalada kaliya ah oo sida Mareykanka dollar loogu isticmaalo oo markii wax la kala gadanayo siinta lagu kala gato arrimahaasi waxaan kala hadalnay maamulka gobolka gaar ahaan waxaan kala sheekaystay gudoomiyaha arintaas maaliyadda dadka u xilsaaran waxaan yiri sababta arintan wax loogu qabanayo ama aad maxay tahay duruufta jirto iyagana waxay inta badan ka antacoonayaan ama maamulka gobolka markaa wareysatay iyo maamulka heer degmo in dadka ku dhaqan dadka beledweyne ay aaminaadii lacagta shilka Soomaaliya ee dhunto oo shilka Soomaaliya hal qaat markii la yiraahdo la soo dhaxgelinayo lacag badan oo faalsa oo xoolaha lagu dhaco sidaas darteed ganacsatadii ilaa inta xal kan laga gaarayo ama arin ka duwan ay imaan doonto in ay go'aansadeen in oo ay lacagta shilka Soomaaliya iska diidaan marka waan rajaynayaa in wasiirka maaliyadda oo imaan doono oo arrimahaasi wax badan laga qaban doono hadii Ilaahay yiraahdo qaab nooca ah ayaa wax looga qaban karaa isleedahay ka wasiirka xogeen ahaan wallaahi nibax aqoon dhinacu u leeyahay kulli xagga lacagta iyo qaabka loo socodsiin karo iyo siyaasadaheeda iyo policy-geeda waxay u degsan tahay wasaaradda maaliyadda inaan ka hor dhaco ma rabo laakiin ana aragti ahaan waxaan qabaa in dadkii ganacsatada naftooda in kalsooni la dhaxmarsiyo oo ayaga ay wax isdhaafsadaan aysan dowladda noqonin mid wax dhaafsiyo u sameynayso waayo ganacsadaha dollarka haayo wuxuu u baahan yahay badeecadiisa markuu dalbanayo ama qofka wax rabo inuu iibsado hadduu shil Soomaali haysto dabcan shil Soomaali ayuu ku iibsanayo marka waxaan qabaa lacagta shil Soomaaliga ee xamar ka shaqeyso in ganacsatada reer beledweyne ee reer hiiraan ah ee dhaqaalaha haysto inay lacagtaasi soo rartaan ayaga maadaama ay labada ganacsi oo ganacsatada wax oo diidan oo shil Soomaaliga diidan ee ganacsatada leeyihiin inay fursadaas way banaan tahay ganacsatada reer beledweyne ee dhaqaalaha Ilaahay siiyay inay keensadaan inta ay awoodaan oo loo baahan yahay oo lacag ah kadib iyaga dollarkii ay ku bedelaan lacagta shil Soomaaliya oo dollarkii ganacsiga kaliya oo ku ekaado weliba sariflayaasha aad u dhiirigelinaya oo sariflayaasha ay noqdaan dadka socodsiin lahaay shil Soomaaliga dowladana ay ku taageerto xagga amniga oo cidii lagu arko
shil Soomaali aan faalsaha ciddii isticmaalaas lagu arko in laga soo saaro go-aan cad oo weliba xataa baarlamaanka aan geyno sharci cad laga soo saaro oo baarlamaanka sharcigaasi ay ku dhaqan geliyaan waxay ahayd maamulka gobolka iyo wasaaradda maaliyadda oo xabsi adag iyo ciqaab adag la duldhigo ciddii lagu arko lacag faalsa inay ka shaqeynayso marka ganacsatada ha bilowdo maamulkana iyo dowladdan waxay u ballan qaadaysaa in xagga amniga iyo isku soo dhawaashahooda lagala qayb qaato mudan wasiir aadaan kaaga mahad celinaya sida wanaagsan ee aad barnaamijka aad nagala qayb qaadatay qaybihii dambe ee barnaamijkii iyo gabagabadii ayaan isla soo gaarnay fursadda ugu dambeysa ee barnaamijka adigoo ka faa'iidaysanaya maxay tahay fariinta aad la wadaagayso bulshada ee ku dhegaysanaysa ama ku daawanaysa intaba waa maasan tahay anigoo horta waqtiga ka faa'iidaysanayo fursadda iyo media hadda aan hor fadhiyo waxaan rabaa horta dadka aan la hadlayo waa guud ahaan reer Hirshabelle reer Hirshabelle horta waxaan ku baaqayaa inay laba arrin iska ilaalishaan ama ay ku camal falaan marka koowaad horta wadajirka tafaraaruq inay iska ilaalishaan wadajirka ay ka shaqeeyaan maamulku waa urdun maamulku wax badan oo laga tabanayo haddii jiraan in hoos loo dhaqo in guud ahaan Hirshabelle la muujiyo inaan loo dhaqmin Hiiraan iyo Shabeellaha Dhexe inaan loo dhaqmin gobolka hadda aan ka soo jeedo Hiiraan xoogaha waxaa moodaa in oo yara ka didsan yahay nidaamka oo Hirshabelle ka didsan yahay laakiin aan ku guuleysan maadaama 2 sano hadda aan gaarsiisan oo mar walba gobolkii la soo boqdo oo dadkii la soo in xoogaha hadda la soo qabsanayaan oo ay aaminsan yihiin xildhibaanada iyo wasiirada Hirshabelle inay reer Hiiraan yihiin oo Hirshabelle ay wax ay ku leeyihiin dadka bulshada marka midda koowaad horta faraaruq in iska ilaalisho wadajir la muujiyo gobol iyo degmo gooni u istaagi karta ma jirto Hirshabelle in la wada istaago ayaan horta dhammaan dadkii Hirshabelle aan ku bogaadinayaa midda labaad in laga wada shaqeeyo amniga oo amniga kor loo qaado saa ogtihiin dadkina waxyaabaha fatahaad haddii ku dhacdo haddii abaar ku dhacdo haddii ku dhacdo waxay ahayd shil Soomaaliga hadduu shaqeyn waayo waxyaabahaas oo dhan waxaa sabab u ah nimanka cadawga oo dalka ku hareeraysan waayo Soomaalida dhul hadduu abaar ka dhaco dhulka kaleeto ayaa dadkii u gudbi karaan ama waxay ahayd haddii marka xoolihii inta laga raro meelihii kale la tagi lahayn nimankii kaleeta dadkii dhacayo baadayo dhahayo waxay ahayd sakawaadkeen oo dadkii abaar haysto macluul haysta ayay haddana hantidooda ay beegsanayaan oo baaranayaan marka in nimankaas cadawga lagu duulo oo amniga laga wada shaqeeyo oo dhulka la isku furo dhammaan degmooyinka gobolka Hiiraan uu ka kooban yahay dhammaan guud ahaan degmooyinka Shabeellaha Dhexe uu ka kooban yahay guud ahaan labada gobol oo Hirshabelle ka koobantay in dhulkeeda aan isku furno in askarta iyo ciidamada Hirshabelle ay lahaanayso lagu biiro oo aysan noqon Hirshabelle meel ciidan la'aan ah inaysan noqon dhalinyarada oo aad u abaabulan oo haddaba hubeysan iyo kuwa aan hubeysnaynba waxaan ku dhiirigelinayaa inay Hirshabelle ay qayb ka noqdaan amniga ay ka shaqeeyaan ammaanka guud Hirshabelle haddii laga shaqeeyo wax naga halaabayo ilaa unta mala waxaan noqon doonaa maamulada ugu dhaqaalaha badan leh ugu kheyraadka badan leh abaaraha iyo dhibaatada jirna waa naga dhammaan doonaan laakiin kheyraadkeena waxaan ugu faa'iidaysan lahaana waxaa waaye cadowga sanduuq fadhiya marka waxaan ugu baaqayaa in isku duubnin la muujiyo cadowgana lala dagaalamo colaadaha iyo arrimaha beelaha dhexdooda ka jirana in wasiirka dib u heshiisiinta asagana oo arrimahaas iyo dadka reer Hirshabelle ay xaliyaan waayo colaadaha qabaa'ilka waa wax ugu badan oo dhibaatada ugu badan ka jirta oo bulshada kala geeyo colaad wiil baa ku dhintay wiilku ma dhasho Soomaalidana waxaa waaye colaad ayaa kala geysay colaad ayaa laba geed kala gelisay colaad ayaa horumarkeeda iyo dadkeeda dhalinyarada ilbaxa ahaay dib u dhigtay colaad ayaa qarankeena burburisay qabiil wax matare qaran ayaa wax taro ani waxaan ugu baaqayaa bulshada guud ahaan in laga wada shaqeeyo nabadda in laga wada shaqeeyo walaalnimada isku duubnida wadajirka wixii wadajir iyo walaalnimo lagu waayay nabad lama helo ragna sidiisaba wuxuu ku waayo walaalow wir iyo xoog kuma helo marka walaalow wax ku raadino waa la isgaari karaa haddii la isgaari ninkii candhuuftaada gaarto gacantaada ha gaarto walaalow dheh inta gacan ka hadal uusan dhicin oo la isdilin waxaan qabnaa in geedka hoostiisa lagu hadlo Soomaalida geed hoostiisa wax ku dhiman jirtay dhammaan colaadaha ka jira gobolka Hiiraan iyo Shabeellaha Dhexe waxaan ugu baaqayaa aan ka codsanayaa anigoo maanta mas'uulkooda ah in fariintaas ay iga aqbalaan oo colaadaha si shuruud la'aan ah loo joojiyo nabadana si shuruud la'aan loo qaato beledweyne ayaad maalmahan ku sugneed haddii aad fiirisay amniga magaalada ka waran magaalada beledweyne
dabcan waa dhex maray bari iyo qoraxsin baa aniga waa tagay dadkiina waa la kulmay weliba xaafadahan dadka ku booqday xaafadaha dhexdeedaan dadka kula kulmay amniga sidii hore waa uu ka duwan yahay ciidan xasilina oo aada u shaqeeyo oo isku dhaf ah oo ka shaqeeya magaalada ayaa jiro magaalka awalkii hore habeenkii lama fiidsan jirin hadda laakiin habeenkii waa la fiidsadaa waqti dambe waa la gaaraa in ammaanka kor loo qaado aan aada u bogaadinaya in saldhigyo dheeraada la furay oo magaalka waxay ahayd awal hal saldhig ah hadda saldhigyadii la ballaariyo la gaarsiiyey deegaanada kale ama xaafadaha kale magaalada la gaarsiiyey waxaan sii bogaadinayaa in saldhigyada kale sida hadda booliiska wuu gaaray saldhigyada nabad sugidda ama howlgallada nabad sugidda ay leedahay ama xarumaha nabad sugidda leedahay in xaafadaha kale oo magaalada beledweyne la gaarsiiyo si ammaanka maanta meesha uu taagan yahay shalay boqolkiiba wuxuu ahay aada ayuu u hooseeyo boqolkiiba dabcan 30 ayuu ahaa laakiin maanta boqolkiiba wuxuu marayaa 60 qiyaasteeda 65 inta dhimanna waa in lagu daro oo xasilintana la sii zaayadiyo saldhigyadana waan bogaadinaa ciidamada taliska booliska ama qaybta gobolka hiiraan in saldhigyo kaleeta xaafadaha la gaarsiiyo sidoo kalena nabad sugiddan waxaan ugu baaqaya in ciidana saas oo kale ay sameyso oo keliya aysan meesha hadda ay ku jirto oo xarunta weyn ah in ay laamo samaysato marka maadaama laamo laga dhex sameeyo xaafadaha dadkii sirdoonka iyo ciidanka amniga ay howlgalayaan cadowgan wuu hoos u dhacayaa amnigana kor u soo kacaya marka intaas bis aan naga maqan intaasna waan rajeynaya sida booliiska ay sameeyeen in hay-adaha kale ee amniga ay sameyn doonaan hadduu ilaahay rabo maxay tahay fariintaa u diraysa marka bulshada Soomaaliyeed gaar ahaan bulshada reer Hirshabeelle si laga guuleysto kooxaha nabaddiidka fariin kale hadda oo ka dhan aan dirayo malahan waa in nimankaas cadowga la iska dhacsho nimankaas waxay ummadda Soomaaliyeed ay u aqoonsadeen ama ay u diidan yihiin in wadajirkooda amnigooda nabadooda waxbarashadooda caafimaadkooda dhaqaalahooda oo koro waayo ninkii ganacsadaha maanta beledweyne jooga luuqa joola u dhama tegi kariyo sababta uu tegi karna waxaa waaye waa qof xor oo shaqaysto oo xalaal xoolihiis ku shaqaysto nimankaas waxay ku haystaan keliya maxaa dowladka ka dhawey maxaa dhulka dowladda ugu dhex nooshahay dowladnimadana ayaa wax lagu gaaraa ma ahane urur sidiis wax laguma gaaro waddankan ururo badanaa soo maray ururadii soo maray ugu xoogganaay ama hogaami kooxeedyo ha noqdaan ama qabaa'il ayagu abaabulan ha noqdaan ama urur diimada ayagu abaabulan ha noqdaan maalin mid ah meesha ka saaraay ummaddan wax keliya ay ku badbaadi karto waa dowladnimo dowladnimadan wax lagu keeni karo waxaa waa in hal far iyo hal amar labada noqda oo dadkan cadowga la iska dhacsho ciidamada la dhiirigeliyo ciidamada dhaqaalaha loo horo la garab istaago dhiig loo bixiyo caafimaadkooda laga fikiro si ay u dhiirigelin ay helaan cadow iskaga dhacshaan ummadda Soomaaliyeed oo dhan waxaan ugu baaqayaa in cadowga la iska dhacsho gaar ahaan ummadda reer Hiiraan iyo guud ahaan ummadda reer Hirshabeelle waxaan ugu baaqayaa inay cadowga iska dhacshaan deegaanada faraha badan cadowga oo haystana ay abaabulaan ciidanka ay garab istaagaan howlgalka isku dhafka oo Hirshabeelle iyo dowladda federaalka ay sameyn doonaan ay qayb ka noqdaan Daacish iyo kooxda Al-Shabaab maxay ku kala duwan yihiin leedahay horta Daacish iyo Shabaab waxay hadda aniga ahaanteeda ay u kala duwan yihiin kulay magacaas ma ahay wax kale u kala duwan yihiin malahan dhagarta waa isku mid dhibaatadeynta iyo dhicitaanka ummadda waa isku mid dilka iyo xagjirnimada waa isku mid inay dadka qarxiyaan oo dadka ay dilaan isku fikir ay ka yihiin dabcan si hadda ku sheegay waa urur marba soo baxay marka Al-Shabaab waxay u muuqataa in ay nimankan Daacish ah niman ka xagjirsan ayaga ay yihiin oo shabaab niman ka sii daranba ka sii fog ay yihiin oo takfiirintan aad ugu sii fog iyagana hadda dabcan waa laba cadow isku ah hadda tan hal dhinac kolay iskaga soo wada jeedaan marka ummadda Soomaaliyeed waxaa fursad u ah maadaama nimankan iyagaba is arki karin dadka u gurbaantumayo oo arintaas dabcan ka qayb qaadanayaan waa cadow Soomaaliyeed waxay la mid yihiin iyaga la mid yihiin dadka kuma dhex noolaan karaan kuma dhex ganacsan karaan dhaqanka ka mid noqon karaan siyaasadda ka mid noqon karaan waxay la mid yihiin cadowgaas aan la dagaalamayno haddii qof garab istaagsan Al-Shabaab iyo Daacish aad walaal u muujisid wanaag u muujisid adiga ummadaada khiyaanay adiga dalkaaga khiyaanay adiga qarinkaaga burburiy waxaan leeyahay dadka lagu tuhmaayo inay yihiin Daacish iyo Shabaab ciidamada amniga inay ka qaadaan tilaabooyin sharci ah oo ammaanka lagu xaqiijinayo maamulka Hirshabeelle oo ka soo saara
sharciga la dagaalanka nabadiidka, maadaama ognaha sharciga la dagaalanka argagixisada in weli oosan kasoo gudbin baarlamaanka federaalka ah. waxaa ayagana ka codsanaya baarlamaanka jamhuuriyadda federaalk soomaaliyeed inay sida ugu dhaqsiyaha badan leh sharcigaasi loo meel mariyo si nimankan cadowgaa liskaaga dhacsho. ummadana dadka fikrigaas aaminsanne intii la waanin karo la waaniyo, intii la wacyigelin karo la wacyigeliyo, intii laga soo celin karo laga soo celiyo, inta aan laga soo celin karin oo fikirka ku fogaatana in maxkamad lala tiigsan aniga qabaa. ugu dambeyn waxaan u mahad celinayaa raadiyo beledweyne oo codka dowlad goboleedka hirshabeelle oo wax weyn ka qabta ama ka tara gaarsiinta dowladnimada ummadda reer hiiraan, gaar ahaan dadka beledweyne ku nool. waan u mahad celinayaa dhammaan shaqaalaha, howlwadeenada, farsamayaqaanada, saxafiyiinta ka shaqeeya raadiyo beledweyne ee codka dowlad goboleedka hirshabeelle. waxaan leeyahay jiro jooga, horumar ballaaran aad gaarteen. waxaana idin rajeynaa mustaqbal wanaagsan iyo horumar inta aad gaarteen mid ka ballaaran ah. wasaaradda warfaafintana aad ayaan ugu mahad celinayaa wada shaqeynta wanaagsan ay shaqaalaheeda iyo raadiyo beledweyne ay la shaqeynayso. waan rajeynaya in idaacadda intaan laga sii ballaariyo, wasaaraddana ay waxqabad badan ay sii qabato. idinka iyo wasaaradda isku duban waa idin mahad celinaya.